in this chapter maxaan ku ogaanaynaa inuu jiro maxaa la yiraahdaa multipolarity inuu jiro maxaan ku ogaanaynaa haddii uu jiro consequences ka dhacayo maxaa ka mid ah waxyaabaha cause garay maxaa ka mid ah as a formal ahaan maxaan ku ogaanaynaa inuu multipolarity uu high u yahay ama inuu low yahay maxaan ku ogaanaynaa maxaan ku xalinaynaa as a model ahaan solution muxuu noqonaa intaba marka waxaan ku qaadanaynaa in this chapter aan ku qaadanaynaa. So in this chapter, we take a critical look at this assumption by seeking answers to the following question. So Alan so socdaan ka jawaabina. Number 1, what is the nature of multicollinearity? Multicollinearity go asal asiga muxuu yahay? Isaga muxuu yahay? Number 2, waxaan ka hadlaynaa waxaan estimate gareynaynaa in the presence of perfect multicollinearity. Yani markuu jiro perfect multicollinearity markuu jiro estimation ku qaabku naqana. Ma la estimate gareyn karaa B1 iyo B2 qiimo ma noo soo baxay mise nooma soo baxayo haddii uu jiro imperfect multicollinearity isagana B1 iyo B2 ma la estimate gareyn karaa oo qiimahooda ma la heli karaa waa haa mise maye waa arkayna. Number 3, marka inta aan ka baxno how does one detect it qaabkeen marka ku detect gareynayna qaabkeen ku ogaanayna in uu jiro multicollinearity problem inuu jiro maxaan ku ogaanayna what remedial measures can be taken to alleviate the problem of multicollinearity. So this problem had our model, يعني model كيني أنا رم إن تست قرينه هدي this problem أنا عن كده حرقنا how can we resolve يعني the way of measurement وأنا عن كل حالين كروا محي محن كل حالنا محن سمينا which type of technique كان استعمالنا مداتنا بدلنا مسبل كان بدلنا مرجعت ذا نحن which technique كان استعمالنا مكأمسنا محن استعمالنا محن سمينا solution كمحن قناة macna maxaan ku measure gareynaa qaabka aan ku xalinayno hadii problem ka aan helno hadaan la helina marka then we doesn't need any solution ma loo baahnaba laakiin hadii problem ka uu yimaado maxaan ku xalinaynaa in our model hadii problem ka aan ka dhax aragno solution ka muxuu noqonaa. So the nature of multicollinearity, so nature kiisu muxuu yahay marka one of the oldest assumption is that there is no correlation or relation between explanatory variables. يعني هرا وصل شيء نحن أنا أول assumption أنا سوق قاعدين أفرت assumption أنا سوق قاعدين أو expected UI وينه limit ده zero expected محلي هذا UI and UI XI وينه limit ده zero expected يعني all of this نحن all of this وحنا و assumption أنا سوق قاعدين كم هاي so assumption أنا مرة سوق قاعدين وحكم ده هاي there is no correlation or relation between explanatory variables. And explanatory variables inuu soo wax relation ka dhaxayn karin inuu wuxuu ka mid ahaa assumption ka expected x1 and x2 or correlation x1 and x2 must be equal 0. If not equal to 0 marka haddii 0 la ekaanin then we have the problem of multicollinearity marka. So maxaleenahay haddii 0 naqanin this one haddii 0 naqanin maxaleenahay waxa jira multicollinearity problem ma jira. So multicollinearity problem originally it meant the existence of a perfect or exactly linear relation among some or all explanatory variables of a regressor model. So the regression model ka ahayno aya explanatory variables ama independent variables aya maxaa ka dhaxeynaa linear relation ka dhaxeynay. So linear relation inuu ka dhaxeeyo qaar kamid ah independent variables ama all independent variables inuu linear relation uu ka dhaxeeyo ayaa waxa la yiraahdaa multicollinearity. Su'aalahan model ka ahayno waxa hayna model uu ka kooban yahay su'aalahan one dependent variable iyo afar oo independent variable ahayna. For example y then waxay la mid tahay waa beta0 plus beta1 x1 plus beta2 x2 plus beta3 x3 plus beta4 x4 plus u يعني afar independent variable ahayna. So multicollinearity waa maxay waa hadii x1 and x2 relation uu ka dhaxeeyo labada base relation uu ka dhaxeeyo macnaheedu maxay waa some explanatory some or all independent variables oo aan ku hayno our regression model aan ku hayno markii uu linear relation uu ka dhaxeeyo ama x1 and x2 ay saameynayo x3 iyo 4 wax relation kama dhaxeeyo or x1 iyo 2 iyo 3 marka correlation ka dhaxeeyo while 4 uu yahay constant ama afartoodiba maxaa leenahay correlation ka dhaxeeyo way is saameynayaan kaasa waxa la yiraahdaa waa multicollinearity problem. So multicollinearity concept developed by Ranger Fritsch in la yiraahdo oo aan Norwegian economist ah isaga ayaa develop gareey isaga ayaa markaa soo saaray isaga ayaa lahaa theory-giisa isaga ayaa lahaa. So from for example key variable
regression involving explanatory value. For example, we have x1 and x2 and xk. يعني it means we have some independent variables and some more explanatory variables إلا اللي يقرأ xk. يعني for example هنا x1 x2 x3 x4 up to xk and هنا. So all of these and هنا أيام مركا laba ka mid ah ama saddex ka mid ah ama ayagoo dhan ayaa maxaa ka dhaxeynayo correlation marka ayaa ka dhaxeynayo marka hadduu correlation uu ka dhaxeeyo marka maxaa leenahay waa multicollinearity la yidhahdaa hadduusan correlation uu ka dhaxeynina there is no multicollinearity wax marka multicollinearity marka ma jiro. So in this case marka aan ku apply garana this one into equation muxuu noqonaa y inay la mid tahay lambda 0 plus lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda k xk. It means maybe it will be more waxay noqonayaan oo maxaa la yidhahdaa oo independent variables. So marka these independent variables oo x1 and x2 iyo x3 ayaa maxay noqonayaan ama inay correlated ay yihiin oo relation uu ka dhaxeeyo macnaheedu waa maxay haddii midkood isbedelo inta kale way isbedelayaan marka correlation aan jira leenahay. So maadaama correlation uu jiro marka maxaa leenahay waa correlated way maadaama independent correlated uu yahayna waxaa leenahay in econometrics there is multicollinearity problem aa jira macna sida caadiga oo all assumptions inoo sheegayeen wayno share relation jirin independent variabladu waynaysan isa saameynin. So haddii isa saameeyaan maxaa leenahay this problem markaa jira while lambda 1 and lambda 2 up to lambda k are constant such as not of them zero simultaneity. It means zero ma waa value waa meesha anaga aan dhahayna bit1 bit2 bit3 the same as waa lambda 0 lambda 1 lambda 2 macna wax difference uma dhaxeeyo macnaheedu waa bit yani bit10 aan isticmaalayna ayaa waxaa laga dhigay lambda waa symbol ahaan waa as a symbol waay marka wax difference uma dhaxeeyo wax weyn ma hadda soo kordhay. So for example you have this symbol this multiple regression equation ahayna oo ah yi inay la mid tahay bit0 plus bit2 x2 plus bit3 x3. This equation ahayna waa so muxuu ka kooban yahay waa two independent variable and one dependent variable. So y da marka maxay u taagan tahay waa 7 x1 waxay u taagan tahay waa income x2 waxay u taagan tahay waa expenditure ay u taagan tahay. So marka in this case expenditure ku iyo income ku they are correlated. It means as income increase maxaa ziyaaday expenditure ku ziyaada laakiin marka si kale loo fiiriyo kullama income ku uu ziyaado anaga waxaan rabaa in analyze garano waa maxay hadduu income ku uu ziyaado saving inta in looga asaga isbedela waa maxay the relation between income and the saving while the expenditure is constant sida caadiga oo in the correct way waa maxay waa in markii aan rabno in analyze garano the relation between x1 and y x2 waa inuu constant noqdaa markii aan rabno in analyze garano x2 and y x1 waa inuu constant noqdaa laakiin markaan fiirino expenditure iyo income ka marnaba constant ma naqanayo laana waa maxay correlation ka dhaxeeyo oo ah haddii income ka uu ziyaado maxaa badanayo expenditure ka badanayo haddii income uu ziyaado maxaa ziyaaday expenditure ka uu ziyaada. It means there is correlation ajiro. So like this model oo kale maxaa leenahay waxaa jira there is multicollinearity problem ajiro sababtoo ah maxay income ka expenditure ka way saameynaya eega naftirkooda relation ka dhaxeeyo correlation ajiro maadaama correlation uu jiro maxaa leenahay this multicollinearity problem ajiro sababtoo ah maxay oo independent variabledeeni am explanatory variabledeeni they are correlated isa saameynaya correlation marka noocee waa ma perfect ya ma imperfect ya muhiim ma lak had muhiimadu waa maxay relation ajiro. So for example marka haddii x2 ay la mid tahay 0.5 x1 macnaheedu waa maxay haddii x2 ay la mid tahay for example maadaama correlation aan jiraan dhahnay x1 iyo x2 ay saameyn oo ah yani expenditure ku wuxuu la mid yahay income ku means income ku iyo expenditure ku ay saameynayaan relation ajiro haddii kan uu ziyaado kan uu ziyaada haddii kan uu yaraado kan uu yaraana for example. So marka as example analysis waxaan leeyahay marka x2 oo u taagan expenditure ku wuxuu la mid yahay 0.5 x1 maadaama correlation uu jiraan dhahnay equation kana ka dhex sameyn oo waxaan dhahnay x2 wuxuu la mid yahay 0.5 x1. So macnaheedu waa maxay marka as the income increase by $1 haddii income ku $1 uu ziyaado the expenditure increase by $0.5 no dollar ku ziyaada expenditure keeni. We have seen here there is a correlation between expenditure and income marka correlation ajiro oo ah expenditure income ku ay saameynayaan which are the independent variables in the above model oo ah the above model independent variabledeedii ayay ahaayeen independent variableda
anaga aan haynin ayay ka mid ahaayeen. So in this situation we are facing multicollinearity problem marka aan face gareynayna. So when relation between two experimental values is perfect or exact relation uu noqdo, then estimation of parameters is not possible. So marka maadaama multicollinearity problem ma jiraan nahnay, so marka multicollinearity problemka noocee waay, ma perfect yahay mise waa imperfect waay. haddii multicollinearity uu noqdo perfect uu noqdo oo perfect relation uu noqdo ama exact relation uu noqdo, exact relation waa soo sheegnay waxaan nahnay is equal 1 aan nahnay. exact relation uu yahay ama perfect relation uu yahay, then estimation of parameters is not possible. inta muhiim ah marka the estimation of parameters oo ah beta1 and beta2 and beta0 lama xisaabin karo, qiimo sax ah nooma soo baxaayo. qiimihii formalkii caadiga aan qiinay equationkii caadiga aan ku soo qaadanay multiple regression aan ku soo qaadanay oo beta1 and beta2 and beta0 aan ku raadinaynay lama isticmaali karo. sababtu waa maxay? Because in this case we cannot find the individual effect of each explanatory variables on dependent variable. sababtu waa maxay? laana lama heli karo individual effectiga uu ku leeyahay explanatorygu uu saameynayo dependentiga lama heli karo. laana ma dhihi karno haddii x2 isbedelo y intee in laga isbedelay iyadoo x3 ay tahay constant lama dhihi karo. sababtu waa maxay? laana x2 iyo 3 ga isa saameynayaba 2 iyo 3 ga isa saameynaya, maadaama isa saameynayaan ma dhihi karno hadduu x2 uu ziyaado intee in lag ayuu y ziyaada while the x3 ay tahay constant ma dhihi karno. maadaama aan saa la dhihi karin macnaheedu markaa beta2 qiimaheeda lama heli karo, sidoo kale beta3 qiimaheeda lama heli karo, sidoo kale beta0 qiimaheeda lama heli karo. sababta aan loo helin waa maxay? laano labadan oo independent variablada ayaa labadooda isa saameynaya intaan la gaarin y-da, yani intaan y la gaarin labadoodaba is effect gareenayo. so maxaa la marka we cannot find the individual effect of each explanatory variables oo ah x2 iyo x3 on dependent variable oo y-da lama heli karo saameyntiisa, which means we cannot find a numerical value of each parameter separately. each parameters of beta1 and beta2 and beta0, each parameters numerical value lama helayo, number go-an lama helayo 0.1 1 2 number or numerical number aan nooma soo baxayo. but if two explanatory values are not correlated, hadduusan perfect correlated uusan ka dhaxeelin, then there is no multicollinearity problem ma jiro. that's why waa marka caadiga oo qiimaha beta1 beta2 beta0 waa la heli karaa, waa very simple way, waa la soo saari karaa. qofku uu soo saari karaa qiimaha beta1 waa imisa, beta0 beta3 waa la heli karaa. waa hadduusan correlation jirin labadoodii, laana hadduusan correlation jirin macnaheedu waa maxay? hadduu mid ka mid ah isbedelo kan kale muxuu ahaana constant isma bedelaayo. maadaama uusan isbedelayna maxaa leenahay? waa dhihi karnaa haddii x2 uu ziyaado ama uu isbedelo y-da intee in laga isbedelay with a constant x3. sidoo kale haddii x3 uu isbedelo intee in lag ayay y-da isbedelay with constant x2. waa la dhihi karaa, waa la analyze garayn karaa. laakiin marba haddii correlation uu jiro oo perfect correlation uu yahay shardi, oo perfect correlation uu yahay, we cannot find the value of beta1 beta2 beta0 lama heli karo qiimahoodii, way adkaanaysaa, very difficult ee naqane. example marka la siiyey as a numerical example, consider the following hypothetical data marka hayna waa x2 iyo x3 daatooyigana la siiyey. so it appears that x3 inuu lamid yahay 5x2. يعني extreme wuxuu la mid yahay waa 5 oo lagu dhufto x2. macnaheedu maxay? x2 imisa hayna waa 10 oo lagu dhufto 5 50 aa soo baxay, 15 oo lagu dhufto 5 waxa soo baxay 75, 5 oo lagu dhufto 18 waxa soo baxay 90, 5 oo lagu dhufto 24 waxa soo baxay 120, 5 oo lagu dhufto 30 waxa soo baxay 150. so marka this equation marka ku timid this one x3, therefore there is a perfect collinearity marka between x2 and x3. So since the coefficient of correlation R23 is unity marka, the coefficient ga muxuu noqonaa marka unity uu noqonaa 1, ama correlation ga muxuu noqonaa inuu la mid yahay 1 laana waa perfect waay. yani kan yani 5 wixii lagu dhuftaba maxaa noo soo baxay? x3 aa soo baxay, marka waa unity ama waa 1 waay. so if multicollinearity is perfect, the regression coefficient of x variables are maxaa leenahay indeterminate, yani lama heli karo qiimaheedi. yani coefficientiga oo x variablada oo x1 x2 coefficientigoodii
oo b1 iyo b2 wixii soo raacay indeterminate uu noqonaa determinate ma noqonaa waa indeterminate uu noqonaa and there stand error are infinite the stand error koodana muxuu noqonaa infinite uu noqonaa ma la nihaaya waxa la yidhahdaa ama infinite uu noqonaa laba misleen it means hadiiba multicollinearity uu noqday perfect uu yahay labada effect ay imaanay parameterkana ma la heli karo oo b1 b2 b0 lama heli karo lama estimate gareyn karo number 2 the stand error kan infinite noqonaa that's why meesha maxaa ka baxay marka the blue macnaheedu waa best linear unbiased estimate soma blue meesha uu ahaa OLS inuu yahay blue inuu yahay way ka baxaysaa haduu perfect yahay the OLS estimation technique blue ma noqonayo oo ah the best linear unbiased estimate ma noqonayo waa hadii marka perfect uu noqdo but if multicollinearity is less than perfect marka waa midka aan dhahayna waa imperfect multicollinearity less than perfect uu noqday less than perfect macnaheedu waa maxay wuxuu u dhaxeeyaa between 1 and 0 u dhaxeeyaa waa less than marka less than 1 uu noqday wuxuu u dhaxeeyaa waa between 1 and 0 u dhaxeeyaa marka maxaa leenahay the regression coefficient can be determinate marka waa la heli karaa laakiin still maxaa leenahay waxaa jira multicollinearity jira laakiin multicollinearity jira ama multicollinearity jira it's not a perfect ma waa imperfect waa imperfect macnaheedu waa less than perfect waa it means waa between 0 and 1 u dhaxeeyaa between 0 and 1 u dhaxeeya so maadaama marka multicollinearity oo imperfect uu jiro still waxa la dhihi karaa in all as estimators waa blue waa la dhihi karaa markaas waa blue waa la dhihi karaa it means waa best linear unbiased estimator waa la dhihi karaa waa hadii goormee waa hadii imperfect multicollinearity uu jiro lan imperfect multicollinearity markuu jiro maxaa lagu ogaanaa maxaa leenahay we can estimate the value of coefficient beta1 and beta2 and beta3 waa la estimate gareyn karaa although determinate marka waa la determinate karaa so large stand error laakiin ayaa jiray the stand error muxuu ahaana large ahaana which means the coefficient can be estimated but with less accuracy giisa yaraanaya inta hadaa fahantid it means multicollinear concept ahaan waa fahantid yani hadii oo perfect hadii correlation uu shin jirinba waa there is no multicollinearity problem hadii uu jiro noocee waay ma perfect ya mise waa less than perfect haduu perfect uu yahay we cannot estimate the value of beta1 and beta2 and beta3 and also the stand error will be infinite noqona and we cannot estimate the value of parameters the value of coefficient we cannot estimate it laakiin hadii multicollinearity jira uu noqdo less than perfect ama oo loo yaqaan imperfect multicollinearity hadii uu yahay imperfect correlation hadii uu yahay we can estimate the value of beta0 beta1 beta2 but the stand error will be high number 1 number 2 the accuracy of this data will be less kalsooni fiican laguma qabi karo kalsoonida yaraanayso saxnaasheeda yaraanayo accuracy-geedu wuu yaraanaa laakiin maxay ku fiican tahay we can estimate the value of beta1 and beta2 and beta0 kala estimate gareyn karaa marka waa very easy way estimation waa sameyn karnaa qiimada waa la heli karaa so the preceding algebraic approach to multicollinearity can be in this figure aan ku muujinaynaa so in this figure the circle waxaa haynaa y x2 x3 representatively marka ayaan haynaa ama respectively so the variation in y wuxuu u taagan yahay waa the dependent variable and x2 and x3 na waxay u taagan yihiin waa explanatory variables so the degree of collinearity can be measured by the extent of the overlap ama shade area meesha marka ay ku kulmayaan ayaa waxay noo tilmaamaysaa the degree of collinearity the degree of correlation ka ay noo tilmaamay of the x2 and x3 circle يعني circulaha x2 iyo x3 hadii ay soo dhax galaan macnaheedu waxay noo tilmaamaysaa degree of collinearity inuu correlation uu jiro noo tilmaamay so if x2 and x3 were to overlap complementary or if x2 were completely inside x3 it means collinearity would be perfect يعني hadii x2 iyo 3 aad isku dhex jiraan macnaheedu waa maxay perfect collinearity ajira hadii laakiin wax yar la isku haysto waa less than perfect uu noqonaa marka maxaan ka fiirinaynaa circle-ka ahayna ama labada circle ahayna oo midka x2 ga x3 ga y-ga muhiim ah waa 2 ga iyo 3 ga circle-ka aan hayno hadii marka ay isdhex galaan
istaabtaan ama isdhexgalaan maxaa leenahay there is multicollinearity aa jira there is correlation aa jira haddii aad isku dhexgalaan there is a perfect aa jira haddii wax yar ay tahay relationkoodii maxaa leenahay there is waxaa jira wax la yidhahdo there is less waxaa jira there is wuxuu noqonaa waa less than perfect wuxuu noqonaa waa imperfect correlation aa markaa jiraayo waa this da marka waa figureka naloo sheegaya waa this one way number one figure number A this y and this x and this x2 this x3 so y x2 wuxuu saameynayaa y correlation kooda waa intaas x3 iyo y na correlation kooda waa this area y while x2 and x3 there is no correlation isma dhexgalayaan maadaama aysan isdhexgalin x2 x3 maxaa leenahay no collinearity ama no correlation wax correlation jira ma laha b imaw y x2 x3 x2 x3 meel yar iska dhexgalayaan this area ay iska dhexgalayaan waa area marka ay wadaagaan saddexdooda ay wadaagaan hadda saddexdooda meel ay wadaagaan ma laha sooma laakiin area hadda saddexdooda meel ay wadaagaan sooma so area saddexdooda ay wadaagaan maxaa waa very low so maxaa leenahay waa low collinearity aa jira ama low correlation aa jira sorry so c ga imaw waa moderate collinearity oo meesha marka saddexdooda marka ay wadaagaan aad waxar normal dhexaad waxar normal waxar weyn daasoo maxaa marka waa moderate collinearity loo yaqaana marka afraad fiiriye d waxar aad u sii weynaatay correlationka yani it means yani kalbar uu soo dhaxgalay yani kalbar uu soo dhaxgalay ama kalbar wax u dhow uu soo dhaxgalay yani marka relation kooda ama meesha saddexdooda ay ku kulmayaan uu ka weeyahay midka c marka maxaa leenahay waa higher collinearity marka maxaa leenahay waa very high oo aad u soo dhaxgalay waa very high collinearity aa jira leenahay يعني simply marka x2 x3 kullama ay isdhexgalaan macnaheedu maxay there is correlation ajira relation ajira way is saameynayaan way is affect gareynayaan some relation marka jira labadoodu way is affect gareynayaan marka maxaa leenahay there is collinearity ajira so marna muxuu noqonaa waa low noqonaa marna waa moderate way marna waa high way marna waa very high way marna waa perfect way marna perfect noqonaa it means waa totally uu is saameynaa totally ayuu isku saameynaa marka perfect correlation ayuu marka naqana so marka this one marka ayaa marka lagu analyze gareeyaa ama this figure ayaa wuxuu noo tilmaamaa inuu multicollinearity uu jiro ama inuusan jirin haddii uu jirana intee in leeg waa degreegiisa ilaa intee in leeg ayuu leeyahay ma very ma higher ma moderate ma lower ma very higher marka waxaa noo sheegaya marka degreegaas noo tilmaamaya source of multicollinearity meeshuu marka uu ka yimaado sourcigiisa waa xagee waxyaabaha cause kale multicollinearity meeshuu ka yimaado waa maxay so saddexdana ku soo koobeena number 1 dummy variable inuu dummy variable marka anaga aan haysano oo aan isticmaalno so dummy variable ko qaabkan u isticmaalina marka jabtarka hore aan ku soo qaadanay dummy variable ko xanaanay waa marka independent variable ka qaab yani qayb kamid ah ama iyagoo dhan markay wada naqdaan maxaa la yiraahdaa qualitative markay naqdaan يعني qualitative marka ay naqdaan ayaa waxa la yiraahdaa dummy variable the technique marka la isticmaalayo waxaan nahnay waa in marka mar walba la isticmaala k-1 ama n-1 waa in la isticmaala yani the number of category ga ahayno waa in laga jaraa 1 kadibna marka waa in laga jaraa kadibna marka waa in marka inta soo harta waa la geliyaa haddii saddex ay yihiin waxaan ka jaraynaa 1 labada marka modelka gelinayna haddii afar yihiin waxaan ka jaraynaa 1 saddexdan modelka gelinayna haddii laba yihiin midaan ka jaraynaa wixii noo soo bax halka ayaa modelka ku dhex daraynaa so marka dummy variable qaabka u keenaa marka multicollinearity maybe incorrectly used marka si qaldan loo isticmaalaa multicollinearity yani dummy variable ka waxa loo isticmaalaa si qaldan loo macnaheedu waa maxay inaan la apply gareynin k-1 ka inaan la apply gareynin plus يعني waxaan k-1 ka hadii aan iska dhaafno one option ama one way iskaga dhaafi karnaa k-1 ka waa hadii aan ka tagno interceptiga soo ma ahayn waa soo sheegnay interceptiga hadii aan ka tagno marka waxaan aanay possible way all the category modelka wala soo gelin karaa laakiin anagoo interceptiga bit 0 anagoo ku xusnay modelkeeni ayaa maxaan sameeynay all category waan ku soo darnay marka maxaan u isticmaalay marka incorrect aan u isticmaalay so markii bit 0 gan aan sheegno all category gan aan ku soo darno modelka waxa loo yaqaanaa waa dummy variable trap meel iskaga qoro waxa la yiraahdaa waa dummy variable trap
it means waa markii all category aan ku xusno modelka beta zero am interceptigan aan ku soo darno all of this markay ku wada jiraan modelka ayaa waxa la yiraahdaa waa dummy variable trouble waa problem يعني it means يعني all these variable all these category ahayna way saameynayaan hadoo midkood uu joogo midka kale inuu joogo compulsory maaha maadaama compulsory aysan ahayn maxaa leenahay marka waxa loo yaqaan waa dummy variable trouble yiraahdaa dummy variable trouble yiraahdaa so marka for example the researcher may fail to exclude one category inuu meesha uu ka saaro ayuu ku fail garooy macnaheedu uu ku soo dara waay or add a dummy variable for every category all the category uu ku soo daray meesha asaga oo ku soo daray mar labaad interceptiga asagoo interceptiga waanan ka tagin ayaa muxuu sameeyey all dummy variable and all category inuu meesha modelka ku xusay marka all these category meesha lagu xusay they can correlate with each other correlation ka dhaxeeyo taasoo waxay create gareynayaan marka multicollinearity problem ay imaanay so marka waxyaabaha cause gareeya multicollinearity problem ka maxaa kamid ah number 1 maxaa leenahay dummy variable trap dad xitaa dummy variable bis hadeen dummy variable trap inuu yimaado ayaa trap marka waa trap yani dummy variable trap inuu yimaado ayaa maxay cause gareynay multicollinearity problem inuu yimaado sababtoo maxay all these category marka meesha aan ku xusno way is affect gareynayaan they are yani correlation ka dhaxeynay way saameynayaan maadaama ay saameynayaan marka ayaa waxay cause gareynay inuu multicollinearity problem inuu yimaado now that's number 1 number 2 including a variable in the regression that is actually combination of two other variables ama in anaga modelkeena aan ku soo darno one variable oo asalkiisaba yani labo variable ka kooban ayaa model ku soo darnay for example total investment income يعني total investment income ka ayaa waxaan rabnaa inaan marka as a variable ahaan u qaadano as a one variable or independent variable ahaan inaan u qaadanaa rabnaa so this total investment income ka when asig muxuu ka kooban yahay waa labo ka kooban yahay oo ah total investment income ka muxuu la mid yahay waa income from stock and bonds plus income from saving interest labada shay oo la isku daray ayaa muxuu noqonaa investment income uu noqonaa yani qofka income ka soo galaya investmentiga total ahaan waa imis يعني investment haduu sameeyo income ka soo galaayo totalkiisa maxaan ku helaynaa ninka laba investment uu sameyn karaa waa investment inuu maalgashto maxaa la yiraahdaa financial market-ka ama inuu maalgashto yani inuu maalgashto financial market-ka ama inuu maalgashto financial institutions-ka yani financial market-ka maalgashto macnaheedu waa maxay wuxuu iibsaday stock ama wuxuu iibsaday bond maxaa ka soo galaya income ka soo galaya sidoo kale ninkan muxuu sameeyey wuxuu maalgashtay financial institutions oo bangiyo lacag dhigtay wuxuu sameeyey saving account uu furtay ama investment account uu furtay maadaama saving account ama investment account uu furtay bangiga maxaan qasaba waa inuu rate bixiya waa inuu rate of profit waa inuu qofkan siiya maadaama lacagtiisa uu ku shaqeysanayo waa inuu bangiga rate bixiya so rate-ka uu bixinayo muxuu noqonaa waa income from saving interest uu noqonaa ama saving profit uu noqonaa in Islamic way in non-Islamic way marka muxuu noqonaa waa saving interest iska dheer marka lan interest marka noqonaa in Islamic way maxaa leenahay waa income from saving profit qof macag save garaysto lacagtiisa marka waa it means waa income from mudaaraba musharaka profit marka qofka uu ku helay ayaa marka labada oo la isku daray ayaa maxaa noo soo baxay total investment income ka soo baxay so marka hadii one variable aan rabno inaan marka as independent aan u qaadano that variable original asalkiisa uu ka kooban yahay laba variable marka maxaa leenahay it will create it means hadii mid kamid ah uu ziyaado kan kale uu isbedela يعني هدو كان زياده معناها maxay investment in stock bond uu isbedela salahan waxa rabnaa in marka total investment ka saameynta uu ku leeyahay qofka wealthigiisa in analyze kareyna for example يعني laba variable soo qaadanay waa total investment ga iyo waxa soo qaadanay maxaa la yiraahdaa stock bound ga investment in stock bound يعني waxa soo qaadanay saddex variable ahayna hal oo dependent variable ah iyo laba independent variable ah halka dependent variable waa maxay salahan wealth ga waa independent variable baxayna laba variable ahayna oo ah income from hayna income from stock for example iyo total income total investment income ana for example investment income oo hal variable ah iyo income from stock oo variable ka labaad ah so in this case marka investment income ka aan nahnay
original hadduu ziyaado macnaheedu waa maxay kana ziyaadaya waay ama haddii income from stock hadduu ziyaado macnaheedu maxaa ziyaadaya investment income ka badanaya soo ma taasoo marka x1 and x2 correlation ka dhaxeeyo lan waa maxay investment income originally muxuu ka kooban yahay laba variable ka kooban yahay number 1 waa maxay waa income ka imaanaya stock sidoo kale income ka imaanaya saving income ka imaanaya saving iyo income ka imaanaya stock marka haddii marka variable original kiisaba laba variable ka koobnaa labada variable mid kamid ah haddii aan separate aan ka dhigno it means we are creating correlation ourselves anaga correlation ka abuureynaba yani labada correlation anaga ugu talgalay inaan marka correlation uu yimaado sababtoo maxay lan original labada way is saameeyaanba marka mostly maxaan qasab marka labada variable la soo qaadanayo waa inuu asal is saameeyeen waa inuu marnaba relation ka dhaxeeyeen the last one an over determined model over determined model waa maxay waa markii explanatory variable la isticmaalayo iyo number of observation aan haysano marka isla eg yihiin ama explanatory uu ka badan yahay the number of observation salahan explanatory variable ahayna 5 explanatory variable ahayna the number of observation aan sameynana waa 3 ama 4 waay logic ma waxa loo yaqaan marka over determined model la yiraahdaa modelkaas marka waa over it means the number of observation ama number of sample ka ahayno iyo explanatory variable ahayno explanatory variable badan ba x2 x3 x4 more explanatory variable ahayna marka la barbar dhigo the number of observation ahayno kana aad u fara badan diska marka waxay create gareynay multicollinearity create means way isdhexgalayaan way effect gareynay so badana marka saddexdana lagu soo koobaa laakiin badana yani waxa lagu soo koobaa waxyaabaha cause gareey mostly waxa la yiraahdaa waa hadii uu yahay qualitative uu yahay waxa la yiraahdaa dama variable trap way hadii uu quantitative uu yahayna datadaada quantitative hadii ay tahayna mostly waxa la yiraahdaa maxaa combination of variable and jiray yani hadii quantitative ay tahay the combination of variable are cause gareynay wasida badan hadda oo yani loo analyze gareeyo يعني مرة هدي multicollinearity maxaa cause gareyn kara source-ga muxuu noqon karaa hadii daatada ay tahay quantitative numerical hadii ay tahay combination ay keeni kara oo laba variable marka hore is dhexgalayna marka as data ahaan adiga aad u soo qaadatid multicollinearity ka abuurmay ama waxa keeni kara hadii daatada ay tahay qualitative ay tahay aysan ahayn numerical aysan ahayn categorized ay tahay maxay imaanay dummy variable trap ka keenay multiple labada way ku soo koobi kartaa ama dummy variable trap ka cause gareynay multicollinearity waa hadii datada ay tahay qualitative ay tahay ama waxa leenahay waxa keeni kara in marka horeba variable oo combination ka dhaxeeyay in qofka asaga uu soo qaato marka error asaga uu ka yimid qofku ka yimid qofka marka yani error isaga uu ka yimid isaga cause gareeyay isaga marka error ka cause gareeyay isaga sababay marka waxa la yiraahdaa marka waxa loo yaqaanaa waa multicollinearity problem marka imaanay ama ada factor dhacayo isaga naftirkiisa inuu marka the number of sample key iyo multi kan badana aad u yar yahay inuu dhaco aad u yar yahay لأنه mostly هذه أو يا explanatory variables أفر شريين ولوجيك ما إنه أفر هنا أنا سامبل عن كسر هذا لوجيك ما وإنه سامبل mostly مرة والبواب بدأ سامبلك لكن sometimes ويد عنا مقدرنا how minus لكن sometimes ويد إكتة إن مركز the number of samples كأن يرينه سدح بس أفر روح بس إنا سامبل عن كسر أرورنا the number of independent variables إن ختم مو somehow مركز some problem create كرينه